kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halkaad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalkii u dhaxeeyay beelaha Gudbiirsi iyo Ciise oo waji cusub yeeshay weerar gaadmo oo lagu qaaday deegaanka Cabdigeedi warbixinaynu idinkaga haynaa madaxweyne Ciro iyo madax dhaqameedka beesha Gudbiirsi oo ka shiray dagaalka galbeedka iyo difaaca gobolka Salal hoggaanka golaha mustaqbalka oo ka dhoofaya Muqdisho kadib fashilkii wadahadaladii dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka wada hadlay aqoonsiga Somaliland Ciro oo cadaadis xooggan kala kulmaya qarinta heshiiskii uu la galay Israa'iil qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan u diyaar garoowa hayagiyo faahfaahsan rabtaa inaad la jaan qaado xabaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhammaystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Shantraala ha sugin maanta soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir telefoonada shaashadaha kaaga muuqda dagaalkii u dhaxeeyay beelaha Gudbiirsi iyo Ciise oo waji cusub yeeshay weerar gaadmo ah ayaa lagu qaaday deegaanka Cabdigeedi jabhadda beesha Ciise ayaa goordhow weerar ku soo qaaday xarunta isbitaalka deegaanka Cabdigeedi dagaalka hoggaanma ahaa ayaa ka hortagay ciidamada Somaliland waxaana faahfaahin ka soo baxaya khasaaraha uu geystay dagaalkaasi weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli bahda dhaqanka Gudbiirsi ay Hargeysa kula kulmeen madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro dhanka kale madaxweyne Ciro iyo madax dhaqameedka beesha Gudbiirsi oo ka shiray dagaalka galbeedka iyo difaaca gobolka Salal salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka beesha Gudbiirsi oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa la kulmay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro kuwaasi oo ka wada hadlay xaaladda dagaal ee ay ku jiraan ciidamada beesha Gudbiirsi xilli ay dagaal kula jiraan beesha Ciise dhawaan ayay ahayd markii xiriirka ay u jireen bahda dhaqanka wasaaradda arrimaha gudaha oo ay isku fahmi waayeen dagaal beeleedyada lagu soo qaaday xarunta Saylac dagaalka u dhaxeeya beelaha Gudbiirsi iyo Ciise ayaa weli ka socda galbeedka Somaliland iyadoo weli dowladda Somaliland ay ka gaabisay difaaca iyo xalinta dagaaladaasi kulanka oo ay madaxweynuhu ku weelinayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa lagu lafaguray muhiimadda iskaashiga u dhaxeeya xukuumadda iyo madax dhaqameedka si loo sugo nabadda guud madaxweynuhu wuxuu ugu mahadnaqay madax dhaqameedku doorkoodii ku aadan ilaalinta nabadda iyo xalinta khilaafaadka isagoo xusay in nabaddu tahay tiirka koowaad ee dowladnimada iyo horumarka wuxuu sidoo kale warbixin ka bixiyay xaaladda guud ee dalka iyo dadaalada diblomaasiyadeed aqoonsi raadinta Somaliland isagoo sheegay inay marayso meel wanaagsan weli wararkeeni ayaad la socotaan hoggaanka golaha mustaqbalka oo ka dhoofaya Muqdisho kadib fashilkii wadahadaladii dowladda federaalka Soomaaliya inta badan mas'uuliyiinta golaha mustaqbalka uu ku jiro madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa lagu wadaa inay ka ambabaxaan Muqdisho laga bilaabo beri ilaa iyo Jimcaha go'aankan ayaa imanaya kadib markii ay burbureen wadahadaladii ay la lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo aan wax is-afgarad ah laga gaarin arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka ilo xogaal ayaa sheegaya in hogaamiyaashu ay dib isugu laaban doonaan bacdul ciid si ay u go'aamiyaan tilaabooyinka xiga xiisadda siyaasadeed ayaa mar kale u muuqata mid wejigii ugu cuslaa gashay iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay war ka soo saartay burburka wadahadaladii
golaha mustaqbalka, kuna sheegtay in golaha mustaqbalku ay ajandaha shirka ku soo dareen qodobo aan ku jirin oo ah doorashada dowlad goboleedyada. Madaxweynaha Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka wada hadlay aqoonsiga Somalilan. Magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya waxaa ka digay madaxweynaha dalka Israa'iil, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya. Madaxweynaha Israa'iil ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxda ugu sareysa Itoobiya, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed, kuwaasi oo uu kala hadlayo danaha labada dhinac iyo xaaladda badda cas iyo Geeska Afrika, iyo in la aqoonsado Somalilan. Itoobiya iyo Israa'iil waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireen ah, waxaana safarkan uu ku soo aaday xilli xaaladda Geeska Afrika ay kacsan tahay. Dhawaanna uu ka laabtay waddankaasi madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Somalilan Cabdiraxmaan Ciro wuxuu cadaadis xooggan kala kulmayaa qarinta heshiiskii uu la galay Israa'iil. Madaxweynaha maamulka Waqooyi Galbeed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa culays xooggan kala kulmaya shacabka iyo mas'uuliyiinta maamulkiisii, kuwaasii hordhigay inuu soo bandhigo heshiiskii uu ku sheegay inuu la galay Israa'iil. Guux siyaasadeed oo ka dhan ah heshiiskaasi ayaa ka soo ifbaxaya qaybo kala duwan oo ah deegaanada maamulka Waqooyi Galbeed. Shacab iyo mas'uuliyiin waxay doonayaan in la soo bandhigo heshiiskaasi oo xukuumadda Ciro ay qarinayso. Maamulka Cabdiraxmaan Ciro ayaa marar badan isku dayay inuu dadka kala hadlo heshiiskaasi si uu uga dhigo inuu yahay mid togan, balse shaki xooggan ayaa dul koray markii xubno uu ka mid yahay madaxweynihii hore Muuse Biixi ay dalbadeen in la soo bandhigo. Warbaahinta Israa'iil ayaa mas'uuliyiintoodii horey u sheegay in Ciro ay kula heshiiyeen saldhigyo militari inay halkaasi ka samaystaan, ka mid noqoshada heshiiskii Abraham, iyo in Falastiiniyiintu si qasaba loogu musaafirinayo lana geynayo Waqooyi Galbeed. Xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro ayaa dhammaan sheegashada Israa'iil beenisay, inkastoo aanay soo bandhigin heshiiska oo qoran oo la wada arki karo. Waxayna tani abuurtay shaki kale oo la xiriira in xukuumaddu ay qarinayso waxyaabo kale oo ka badan inta la sheegay. Maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa xukuumadda Ciro ka dalbaday inay soo bandhigto heshiisyada ay la gasho Israa'iil. Wuxuu dadka dib u xasuusiyey hadaladii Ciro uu ku diidnaa heshiiska xukuumaddiisii Laanyo la gashay shirkadda DR World. Culimo, aqoon-yahano, duubo dhaqameed iyo dad kale ayaa shacabka maamulka Waqooyi Galbeed ugu baaqay inay ka fogaadaan in loo sacabtumo heshiiska qarsoodiga ee xukuumadda Ciro ay la gashay maamulka Israa'iil. Haddaba, maxaa sababay in xukuumadda Ciro ay qariso oo ay soo bandhigi weyso heshiiskaasi halka Israa'iil ay bannaanka la taagan tahay waxa ay isku afgarteen? Guud ahaan daawadayaal, waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen waa Jawa Media. Intaynu warka war la mid ah oo dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.